wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Galmudug Farxaan Cali Maxamuud ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ka daahfuray xafiiska dakhliga caasimadda kaas oo ka shaqeynaya aruurinta iyo xisaabinta dakhliga canshuuraha ee ka soo gala magaalada Dhuusamareeb. Wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Galmudug waana xafiiskii labaad ee wasaaraddu ay ku yeelato magaalada Dhuusamareeb. xafiiskani kuwa lamida ayaanu ka soo furnay rumaantii magaalada Gurceel, magaalada Caabudwaaq, magaalada Cadaado, Dhabbad iyo Balanballe. sidoo kale waxaa xafiis sidoo kale nooga furan yahay Gaalkacyo. nadoon inaan xafiisyada furnay laakiin waxaan u soo xulay shaqaale aynu maarta kartidooda iyo aqoontooda iyo insha Allah tacaala waxqabadkooda ay muujin doonaan aynu maarta ay ku beys gareynaa xulitaankooda. waxaan aad iyo aad ula dagaalami doonaa ahmiyadda wasaaraduna ay tahay in ay yareyso ama 100% maarta dhinto dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa. si cad oo waadax ayaan ku maamuli doonaa isla markaana la jaan qaadi karta nidaamka caalamiga ah ee lagu maamulo maaliyadda ayaan maaliyadda ku maamuli doonaa. waxaan aad iyo aad u kobcin doonaa aruurinta, waxaan aad iyo aad u yeelan doonaa kharashka, waxaan sidoo kale aad iyo aad u banaabi doonaa service delivery waxa la yiraahdo developmental maarta projectska mashaariicda horumarinta iyo in maarta adeegga bulshada la kordhiyo hadii la yiraahdo. xafiiskan ayaa si rasmi ah u hoostegaya wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Galmudug waxa uuna qaban doonaa dakhli ururinta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaana ka howlgalaya shaqaale loo tababaray shaqada xafiiskani loogu talagalay in uu qabto. wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa bilihii la soo dhaafay deegaanada Galmudug waxa ay ka hirgelinaysay xafiisyada la socodka iyo dabagalka canshuuraha iyo dakhliga dowlad goboleedka Galmudug taas oo kor u qaadaysa hanaanka maaliyadeed ee dowlad goboleedka Galmudug. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.